Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo noqod wanaagsan asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada youtube-keena Kayf Bashiir waa aniga Kayf Bashiir asxaabtada igu cusubtiin like saara subscribe saara asxaabtiin kula la sii wadaag waa maasantiin dhammaantiin insha Allah inaad ka wada heli doontiin rajeena maanta iyo qadadeena oo ah kalaamudo inaba caadi maaha lagama sheekeyn karo macaankeeda waxaa rajeynaa inaad zaaid uga heli doontiin waa maasantiin asxaabteyda qaaliga soo dhawaada marka asxaabta qaaliga meeshan waxaa ku haysanaa digsiga dabka soo saaranay hilib ku shubanay waa kiilo hilib ah adi mar walba familkaaga qiyaastiisa ku xiran tahay kiilo hilib ari ah waaye marka waa biyeynaa marqay saarna in hadhow isticmaal waa arki doontiin sidoo kale waxaa ku darsanaynaa cusbada shiidan aad waxaa jecesha ku darsan kartaa kadib intuu noo soo waxaysmaayo waxaa soo qasanaynaa kalaamudadeena mise intuu noo soo karsamaayo makiinadaana ku qasaneynaa ani waxaa isticmaalaa kiilo wax yaroo dhiman oo bur ah meeshan ku shubtay sidoo kale waxaa ku shubanaya 4 qaando sonkor ah sonkorta xogaa dhadhan u yeelay hadaarto iska dhaafi kartaa hadaada macaanka jecleen macaan zaaidna maahan xogaa yar leh waaye sidoo kale meesha waxaa ku darsaneynaa hal xabo ukun ah ukunta waa ka badsan kartaa hadaartana waa iska dhaafi kartaa dadka allergiga ku qabo sidoo kale waxaa ku darsaneynaa biyo iyo cusbo yar waa bur iyo cusbo iyo ukun iyo sonkor wax saliid la dhahay la taabsiinayo kadib intaan qasayna makiinadan hadaada haysan gacantaada ku xashaysi fiican ina wax xishtid waaye oo jeedii makiinada xashayso waa u daaraa si fiican ay u qasaysaa waa u dheereynaysaa si fiican igu xashto kadib hadda waxoogaa yar waa diminayaa waa fiirinaya marka burka inuu adag yahay inuu jilcan yahay waa iska fiirinay hadda uu isoo xashay si fiican uu isoo xashay sidaa way ii noqotay kadib waa kasoo baxsanaynaa meeshaan la imaanaynaa kushiinka soo nadiifsaday bur yar ku soo shubtay sidaas oo xashaa ujeeda hadaada bahasha haysan gacanta hadaada haysan inta meel soo saarta si fiican u xashanaysa hadaa makiinada haysatidna waa iska caadi hadaada haysan makiinada wax lagu qaso gacantaada inaa ku xishtaa si fiican inaa wax xishtid waa wax saliid la dhahayna lama taabsiiyo kadib markaas soo dhameynay horaha ka jarjaray waxa meel la dhigayna ma ahan kadib waa jarjaraneynaa waa fidinaynaa waa arki doontiin kuusaskaasi kala jarjaranaya inta cadaara baa ku dhigdhiganaya sidan waa fidsanaya waa arki doontiin bahashan zaaid oo macaanta laakiin xoogaa markaad karinayso khayr waa adagtaa laakiin markii karisid howsheeda dhan aad dhamaysid cunitaankeeda inaba caadi maaha laakiin howsheeda wax yar adag maalinta kale muddo sameynaysid waa inaad waqti hor usoo kacdid xoogaa waqti u baahan tahay duuduubiskeeda waqti u baahan waan arki doontiin asxaabta qaaliga laakiin inaba caadi maahan hadda kuusa soo qaatay oo kuwan kuusaska kuuskuusa ka mid ah waa fidsanaya bura ku fidinaya wuuna adag yahay burka waa fidinaya foolyada inay adkaato aa loo baahan yahay foolyada inay adkaato loo baahan yahay foolyada inay jilaac ahaato ma fiicno marka hadda intaan fidiyo waxaa isticmaalayaa bahashaas adi waxaa haystid mindiya isticmaali kartaa hadaada haysanin markaasaan u isticmaalo dhexdaag sii kala baraya because zaaid oo dheertaa sida baastaa dheer camal bahashan buskudka xitaa waa ku samaysan kartaa markaas dhexda usoo kala barmuujidiino ayada dhan sida qurux kula usoo baxday kadib intaa wax yar saas ku dhehaysaa saxanka bur yar kusoo disbufidinay ku firfirdhinaysaa waa saaraysaa marka camal markii baashan la waxayna waa isku tolwacdaa xoogaa shaqo u baahan tahay qof kaligiis hal mar inuu ka wada bixi karo mumaleena xoogaa dadka la familkii caawiya duuduubis u baahan tahay marka mujidino ba gacanta saare marka baasha isku jijiratid gacanta saare asxaabta qaaliga bahashan hadaada haysan foolyada camal mise burka saan u fidsanaysaa mindiya soo qaadee waa ku jarjaranay kadib gacanta ku dhuudhuubinay bun hadii la waa bedelkiisa ilaa Allah waxa daaweysid waa inaad si kale u habeysatid
kadib sidaas aan kusoo waxaynaynaa waa duuduubeynaa wallahi inaba caadi maa macaankeeda lagama sheekeyn karo kalaamuudada bas waqti yar waqti u baahan tahay waqtiga markaa gelisid wax yaroo macaan badan oo kusoo baxayo resultigina waa arki doontiin markaad samaystiin kalaamuudada dhammaan waa soo wada duuduubanaynaa xoogaa meelaha haduu yar cajiin yar iga haro geesaha iga dhow sidaa ugu celiyo waxaa rabaa haddana markaa samaynaysid waa inuu iska hala ekaado mid dheer iyo mid gaaban inuu kaa kala noqon markaa duugaysid waa inuu ku wada dheerdheeraado mar walba adiga sidaa ku bilaawdid ama kuuskuus xoogaa yariris hadaa ku bilaawd waa inaa saas ku dhammaystaa mar walba waa inuu iska hala ekaadaa ani sidaana kusoo dhammaynayaa asxaabta qaaliga hadda qayb kamida soo baxaya ujeedin saamahano waxaa geenayaa qorraxda meesha banaankaas ka dhigaysaa inuu soo qalalo markuu soo qalalona dabkaa waxaysanaynaa asidhan sidaana kusoo dhadhamaynaynaa kan xoogaa uu leersanaa inta kale sii sameynaya xoogaa inuu qalalanya amuudaa laakiin inta kale sii sameeya hadda maraqi meeshaan ku diyaarsaday waxaa waa hilibkii biyihii maraq ka bixiyey marka maraqaana kasoo miiranaya marka digsiga inaa iska bedelo abkas ma ku karin kari way badan yahay digsigaana ma qaadi karo kiilo digsigan kala soo qaatay saliida kusoo shubtay basalaha si yaryar soo jarjaranaya qiyaasta familka ku xiranta familka haduu yar yahay kalaamuudo nus kiilo camal iska samaysanaya daartid inta familka qiyaastiisa marka hadda meesha marka digsiga basal ku soo shubtay basalaha si yar soo jara ku soo shubtay oo isku shiilaya kadib waxyaabeena kusoo darsanayna meeshaan waxaa kusoo darsaday yaanyadeena caadi ay mirooley soo shiitay oo soo miire oo inay xoogaa u badnaataa dhadhanka yaanyada zaaid u macaan tahay sidoo kale shiishiida kusoo darsaday xawaaji kusoo darsaday inta xawaaji haysta ku darsan kartaa ani xawaaji guriga ku sameeya ugu horumariya mar walbo iyo inta xawaaji kale iyaal dhan ku dardara qasama waxa ku daray inaan ku darto muhiimada labada xawaaji ku yaal xataa ku darsan ani markasta waxa uu soo dambeeyay filfishana cuntada zaaid u macaanisa hadda waxa ku daro paprika adi inta xawaaji haystile ku xirantaa filfish waa ku daray kadib waa isku walaaqaya markaas ku walaaqo markaas ku walaaqo hilibkeeni ku soo shubanayna hilibkii hilibka hadda maraqi meelaha dhiganay hilibka ka soo qaadanay hilibka ku soo shubanay sidoo kale aad maanta isticmaalayaa jumbo maraq digaag sa u taqaan hadaad cuno iska dhaaf kartaa mar iska isticmaalna laakiin u badnin waa ku darsanay hadda waa ku darsaday daboolka u dheereena ilaa uu kasoo shiilmaayo yaanyada dhan xadka galgalayso ilaa uu saliid soo tafaamujido yaanyadii markii hilibkiis kusoo shiilma xoogaa kadib waxaa kusoo darsanaya bardhada ay macaanaysaa hadaad jeclayn waa iska dhaaf kartaa khatar leh kaaga sii dhigay qudaarta hada u badsatid hadda waxa kusoo darsanayo waa maraqi baaquli wax yar uu noqdo maraqa baaquli ma kusoo dara hadana kista kale ku harta kusoo daraya xoogaa biyaha meesha rabo ma ii gaarsiisano maraqa marka biyo cad kusoo buuxsanaya haduu maraqa ku dartid ku yaraa biyo cad ku buuxinay hadda waxa soo qaatay kalaamuudadii sidaas oo waxayna quraxdaas soo dhiga xoogaa intuu waxaan dhasi shishiilay kadib ujeedin sidaas ugu shubaya cambaarka ku shubo asxaabta qaaliga kisa ama haafa ku shubaya marka ku shubo waa cambaar marka haaf ku shubo waa walaaqeena haddii aad walaaqan iska ka dhigdhigay marka xooga ku shubtid baa iska walaaq oo ku soo wada dhameynay oo ujeedin sidaas inoo noqotay daboolka u dheereysanayna intuu noo soo karkaraayo ujeedin hadda se u taqooso wax yara u dhiman deecaana ka buuxo inuu bursadaa loo baahan yahay
dabka loo gaabinaa haddaad jeceshahay sidaan ugu degsan kartaa haddaad rabtidna xoogaa usii dhaafeynaa anaka waxyar kadib waa ka dejinaynaa waxyar kadib waa ka dejinaynaa asxaabta maasha allah sidan quruxda badan ee noogu soo baxday waatana kala mudadeeni anaka dheecaan yara ku reebanay zaaid u macaanta markaa dheecaanka yar ku reebatid qof walba iyo dooqiisa waa ujeedii maahno innaba caadi maaha lagama sheekeyn karo asxaabta qaaliga macaankeeda ka daran hoosha dhan waxaa ku hilmaamay markaa cuntid macaankeeda waxaa rajeynaa inaad ka wada heli doontiin asxaabteeda qaaliga fideogan video ku xiga intaan ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu